waan xaraystay laakiinse sidee loo ogaadaa insha allah waxaad awood u yeelan doontaa in aad ogaato maalinta bisha shanaad ay ku beegan tahay 8 bisha shanaad ee soo socota maalintay ku beegan tahay 8 ayaad awoodi doontaa oo aad fursad u heli doontaa anigana waxaan ballan idinka qaadayaa in aan live soo galo maalintaasi oo halkaasi aan isku dayo dadka aan awoodin inay fiiriyaan internet dhankeed ma wax walba dhankooda ha ahaado inaan idinla fiiriyo ayaan isku dayaa insha allah waana ballan waana samayn doonaa hadduu ilaahay yiraahdo dhanka kale su-aasha kale dadka i weydiinayana waxay tahay maxaa update usoo bixi layahay dv loteriga 90% update ma soo baxo ilaa iyo laga gaaro bisha shanaad oo maalinta bisha ay ku beegan tahay 8 waana maalinta ay maaragtay update-ka uu soo baxayo ama maalinta ay wax shaaciyaan oo qof walbana is arki karo inuu guuleystay iyo in kale haddii aan usoo laabto su-aasha kale group 5 shalay instagram live aan ku jiray maaragtay liveka instagramka waxaan arkayay wiil aad information badan oo haya oo liveka ugula jiray oo yiri dad badan ayaa lacag laga gurtay ilaa iyo haddana kiisaskoodii oo group 5ka uma soo bixin taa markaa waxay ku tusaysaa in dadka si mala awaal ah si waali ah ay qof walba lacag u siinayaan aysan eegaynin qofka wuxuu yahay waxaa la ii sheegay oo wiilka ila wadaagay waxay ahayd in dadka marka ay lacagta siinayaan loo sheegay inay yihiin dad oo horay processyo kale ay usoo gudbiyeen dadkaasi anaa idin sheegaya marka dadka dhahaya annagaa process hebel saa dad intaan u samaynay dadka ay saa yeelayaan waa dad ayaga isleh oo qowlaystayaal isla ah oo lacagta hadhow isla cunayaan weeyaan number 1 number 2 qofka waa inaad weydiisid laysanka uu ka haysto dowladda ee ogolaanshaha ah inuu qof ku keeni karo Canada isida waayo lacag baa kaa baxaysa adiga wax ma baryaysid ma tuugsanaysid lacag baa wadataa so waxaad leedahay saaxiib anaa kuu samaynaya informationkaasi keen shahaadada ama laysanka oo dowladda ka haysatid waa fahanteen aan filayaa